mudane Faarax Guuleed Bidhaan ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Somali Community Board kadib doorasho ka dhacday magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Kulanka lagu dooranayay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee jaaliyadda Cabdiraxmaan Gaarane kaasi oo si rasmi ah xilka ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub Faarax Guuleed Bidhaan kadib markii Maxamed Cabdiqaadir Mire oo ahaa musharax u taagan hoggaanka jaaliyadda uu ka tanaasulay tartanka doorashooyinka. Sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka mudane Xasan Aadan Leeb. marka waxaan go'aansaday inaan walaalkay Faarax Guuleed Bidhaan aan xilka ugu tanaasulo cawada waxaana guushi meesha ku raacday Faarax Guuleed Bidhaan inuu yahay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika. waxaana xilwareejin sameyn ku wareejin doono kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Gaarane. waxaan u hambalyaynayaa musharaxa la doortay ee magaciisu uu yahay Faarax Guuleed Bidhaan. anoo jaaliyaddii mas-uulka ah jaaliyaddiina caawa matalayo si hufan oo qurux badan oo nidaamsan waxaan rabaa inaan ugu wareejiyo musharaxa la doortay caawa ee Faarax Guuleed Bidhaan. waan caafimaad qabaa waxba igama khaldana caadi baan ahay raalli baan ka ahay inaan wax walba ku wareejiyo musharaxa adinka aad doorateen. mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiyaheenna cusub ku soo dhawow xilka Somali Community Board ee waddanka Koonfur Afrika. gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda ayaa ballan qaaday in uu si hufan ugu shaqayn doono dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka Koonfur Afrika. marka waa maasantiin walaalayaal waxaan rabaa inaan maaragtay ballan qaadiyadaydii aan hore u sheegay inaan maaragtay ayagoo ficil aad aragtaan sharciyadan ku dadaalaya inamiligi dawladana waxbaan ka qabanayaa laakiin waa ku dadaalayaa qof kasta oo iga caawin kara oo aqoonteeda u lahna waa la kaashanaya oo waxa ugu horeeyo ugu dhibka badan labo locationada dhibaatooyinka nagu haya waxaan ilaa ballan qaadaya 9 gobol South Africa mid kamid ah inaan tagi doono mid kaste qofkii dhibaato u gaartay ama dhalinyarada dabagalna aan ku sameey doono oo amniga aan la kaashan doono oo hadii Ilaahay yiraahdo aan dadaali doono sidii hore waa dhintay hal la duugay wax la dilay lama yaqaan wax dabagala aysan dhici doonin inta karankaan in kastoo maaragtay aan anagu dawladda aynu wax badan qaban karin isku xirka safaaraddeena Soomaaliyeed laga maarmin iyo waxaan sameynayaa isku xirka dawladdan South Africa oo ku noolnahay labadaba waxaan ka shaqeyn doonaa inay dadka aan la noolnahay oo martida u nahana macaamil wanaagsan kula noolaano dawladdeena Soomaaliyeed safaaraddeedana aan xiriir wanaagsan la yeelano oo maaragtay aan naqan dad dawladda la nool yihiin iyo dawladdoodii ka warqabkooda ku shaqeeyo oo aan noqon dad maaragtay qofba meeshuu rabo u shito marka insha Allah intaan caaw dadaashay xilka mas'uuliyadda weyn garabka ii surtay iyo intaanay kalaba waxaan ballan qaadi doonaa in gudoomiyuhu siisu noo sii shaqeyn doona. ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay doorashada ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda ee dalkani Koonfur Afrika iyagoo u rajeeyay hoggaan wanaagsan midnimo iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed. halkaan anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca jaaliyadda iyo saaxiibaday waxaan hambalyo kaliya laba u dirayaa saaxiibkay Faarax Guuleed oo meeshan ku dooranay hoolkan waxaan leeyahay saaxiibkay Faarax Ilaahay ku dhib yareeyo
xilka ilaahay ha kugu asturo kii dadka isku wada ilaahay ha ka dhigo waxaan rajaynayaa faarax inuu ka soo bixi karo xilkaas waana insha Allah waa ku kalsoonahay inuu shirkaas ka soo bixi karo xilkaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wiilkayga faarax oo musharaxa iyo wiilka kale oo la tartamaya maxamed iyo ka soo qaybgalayaasha dhan iyo gudoomiye ku-xigeenka cafwan aniga de Soomaaliyan ka imid magac ma aqaano laakiin waa cudur daarana horta waan hambalyeynaa faarax wiilkayga waan hambalyeynaa waliba ducana waa ugu daraa wiilka kale oo la tartamo u tanasulo walaalkiisana waxaan leeyahay gobonimada hal maalin waaye waa maanta oo kale oo qofka walaalka oo macnaha u baahan tahay marka waxaan leeyahay ragga la doortay iyo kuwa dooran iyo kuwa kale oo la dooran doonaba meeshan South Africa deena Soomaaliya markaan joogo dhibaatooyin badan ka jiraan kasta hadda la kulmin laakiin waxa sameeysiin jaaliyada markaa tihiin in aad sameeysiin waxtar macnaha xilka markii la idin magacaabo in waxtar yeeshaa ma la rabo magac kaliya in aad ka sameeydiin laakiin waxa loo baahan yahay sida lagu yaqaano dadka markii la doorto inay xaafiiskooda wax qabad oo u yeesho bulshada ama se jaaliyada markaas dooratay waa noo howl yareyseen gudoomiye soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow dadku jecel shaqo badan baa ku sugaysa aad baan kugu hambalyeynaya gudoomiye